السلام عليكم ورحمة الله. وعبد الرشيد علي الشيخ محمد ويه waxaan maanta idiin ballan qaaday inaan ka hadlo kitaabka quraanka maalmo Sweden Scandinavian-ka lagu gubay marka qodobkaasaan insha Allah aan ka hadli doono. Hadda waxaan hal saac u soo hormaray maqribkii oo waqtiga London isbedelay UK maqribkii bay u soo dhawaaday. awal waxaan soo gali jiray markay 7 tahay waqtiga London 8 waa ka bixi jiray, laakiin hadda inaan 7 ka baxo ama 6:40 ama 6:30 ka baxo marka warku iga dhamaado way qorshahaygu si aan maqribka ugu diyaar garoobo. waxaan kaloo insha Allah warka aan ku soo qatimahayaa Sheikh Maxamed dir Sheikh Maxamed Umar Sheikh Maxamed Sheikh Umar dir oo fadhigiisu yahay Hargeysa Somaliland oo waaridka la hadlay maal dhaweed oo aan dhageystay oo xigmad badan kula hadlay baan 4 xigmood oo sheekha aan ka soo dhageystay oo sida loo tarbiyayo caruurta muslimka sida waaridka muslimka inay u tarbiyayaan ay diintu farayso oo sheekhu sharaxay baan 4 qodob oo xigmad oo gaagaaban oo Sheikh Maxamed Sheikh Umar dir uu yiri ayaan warka ku soo xiraya insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إن جعلنا ما على الأرض لها زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. intaasu waa qur-aanka soo dejintiisii iyo rasuulka digitaankiisii iyo ilaahay waxdaniyadiisa magacyada ilaahay dadka waxay ku hadlahayaan aan aqoonin cilmi u lahayn haddana iska hadlahayo beenta ku hadlahaya. waxaan u gudbaynaa marka aayaddii qur-aanka saldhigiisa maantay iyo hadalkan qur-aanka la gubay saldhigiisa ahayd waxa weeye tiibaan bilaabaynaa. qaala tacaala yaa yaxyaa khudi ilkitaaba biquwatin waaataynaahu lxukma sabiya waxanaanan min ladunna wazakaatan wakana taqiya wabaran biwaalidayhi walam yakun jabbaran casiya wasalaamun calayhi yowma wulida wayowma yamuutu wayowma yubcahu xaya. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. إلهي وحير النبي يحيى أي إله الله وحير كتابك حك قاضي كتابك توراة وأذكر حشي أو ياشا ينيم موسى وإناد حوك قادتها معنى وحاول دذال ليراد إناد بحسوي قرانك كتابك توراة وإناد دذال فربضن جلسة وحد دذال ليضح إناد وحبها كرنوي إناد أدوك عمل فشو نبي يحيى حدنا أدو مدن قدري جارسيسيد حدوا كتابك اللوغو بي مالمو سويدن اسكاندنافيانكا oo muslimkana ay ka jawaab celiyeen oo reactionka ka bixiyeen uu ahaa inay baalayaashii dhulka dhigeen inay burburiyeen wixii wadooyinka alaabka ag dhawaa. marka mataasa kitaabka in loogu argudo sida ugu fiican oo kitaabka loogu argudayo masaasa maya saas ma umana dhawa. kitaabka in loo argudo muslimiinta caalamka ku nool oo 2 bilyan haday rabaan oo 7 bilyan ba adduunka lagu sheegay 5 bilyan waa gaalo 2 bilyan waa muslim Soomaa 2 bilyan kitaabka haday inuu argudaan rabaan kitaabka argudiisu waxa weey midan ilaahay u sheegay oo nabi Yaxya ilaahay uu ku amrayo weey yaa Yaxya khudil kitaab biquwatin wa aatayna al-hukma sabiyya asagoo ilmo yar saqiira ayaa ilaahay xigmad siiyay. nabiyada inta badan 40 baa lagu siiyaa kitaabka iyo diinta laakiin nabi Ibrahim iyo nabi Yaxya iyagoo yar yar oo ilmo yara oo sabi waxa weeye ilmaha yarka 2 sano yana naasku hooyadii 2 sano oo gura oo laga guriya 2 sano markuu nuugay intuu uurka ku jirana 6 bilood ama 7 bilood ama 9 bilood ka soo qaad xaq waaridku uu ku leeyahay cunugu 2 sano 6 bilood way
إلى النوتان كيسا إلى دلشديسا أس كذا معناه حق أسكا marka ilmo yaro intaas leeg asagoo ah ayaa ma taqaana nabi ibraahim iyo nabi yaxyaba ilaahay uu kitaabka siiyay oo macna xigmad la siiyay markay 40 gaareen nabinimada baa loo dhameystiray marka asagoo yar buu hanuunsanaa oo xigmad ku socday nabi yaxya waxa weeye marka muslimiintu haday rabaan inay kitaabku u argudaan kitaabka argudashadiisu waxay noqonaysaa kow in la xafido oo hadda hadiiba gaalada ma taqaanaa haday kitaabada ay haystaan ama kitaabada muslimku wataan haday kootorbaan ka dhigaan sida daroogada oo ay qaataan oo ama wada gubaan sida kan oo kale haday rabaan ama meel ku xashaystaan maxaa adiga markaas ku cilmi ah markaas laakiin hadaad xafiisan tahay haday kitaabka gubaan iyo haday jeexjeexaan iyo haday inta qaataan meel ku xirtaan ayigi ilaahood baa ku xisaabtamahay laakiin adigu quraankaaga madaxaagu kugu jira waa sababka quraanka loo xafido marka waa saas qodobka labaad macnihiisa inaad baratid quraanka oo quraanku iska xafid kaliya ma iska dareeri ma waa inaad macnaha aad garanayso oo waxa ku jira oo xigmad iyo cilmi ah haday tawxiid u tahay uu ka hadlahayo haday shariica ay tahay iyo fiqh uu ka hadlahayo haday akhlaaqiyad iyo suluk uu ka hadlahayo hadii ummadihii hore iyo nabiyadii hore wuxuu ka hadlahayo qisas iyo taariikh maxaan ku raadaa waxaas oo dhan cibaadad wax alla wuxuu xigmad sheegay inaad barato way marka saddexaad inaad ku dhaqanto ku amal falasho way quraankaada xafiday oo haddana macnihiisa baratay waa inuu quraanku wuxuu sheegayo inaad raacdo way oo asaga aad daba socoto inaad rumayso inuu hadalkii ilaahay yahay cilmi iyo xigmad ka weyn oo u qalantana aysan adduunka joogin inaad taasna rumaysan tahay way oo waxaan ikhlaas ay ka tahay xafidada quraanka aad xafidays ilaahay dirti inaad xafiso ikhlaas ay ka tahay barashada ay ikhlaas ka tahay ku amal falku ikhlaas inuu ka yahay ilaahay dirti inay ka tahay rumayntu ilaahay dirti inay ka tahay intaas laga raba laakiin kii gubahay kitaabka oo gaalka Sweden maalmo ku gubahay iyo kuwa weeraraya oo dhan muslim baan nahay dhahaya waxa u dhaxaysa intooda badan la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah tawxiidka bas u dhaxaya inta kale asagan kitaab gubahay bay kala mid yihiin gaalkan ma tukado ayagu ma tukadaan gaalkan khamru cabaa muslimka inta badan khamra cabaa gaalkan waa tuug haduu rabo muslimiinta tuuga badan baa ku jirta gaalkan waa sineystaa muslimiinta qaar badan sineystaa ku jirta muslimi ninkan gaalka ahu labiskiisa haduu rabo sanka iyo carabka iyo ma taqaana meelahan iyo indhaha iyo dhagaha ya u duran muslimku waa u duran yihiin madaxa geesahan baa xiran muslimka madaxa geesaha waa u xiran yihiin surwaalku gaalkan dabada waa ka dhacaya muslimka dabada surwaalku waa ka dhacaya gabdhaha gaalada waa madax qaawiyin kuwa muslimka in badan gabdhaha madax qaawan gabdhaha gaalada shaati surwaal jeans bay wataan qaar kood garan bay wataan muslimiin badan oo gabdhaha oo garan wata ama shaati surwaal kaliya wata ba jira sigar buu gaalkan cabaya sigar buu cabaya muslimiin inta badan Soomaalida chat iyo sigar ba chatka u sii dheer oo bini'aadanka inta badan wax cunaba iska yiriin haddii marka gaalkan kitaabka gubay aad ka duwan tahay shahaadada kaliya oodan soomay oodan tukanayn oo sinaysanaysid oo aadan xaj aadin oo aad ribo cunayso oo maxaan ku raa agoonta xoolaad cunayso oo waalidka ma taqaana wacay oo lacag u direynin oo darays ad gadaysid oo maxaan ku raa dadka dilaysid oo aad tuug tahay oo aad ma taqaan beenlow tahay oo munaafiq tahay maxaa idin dhaxay adiga gaalkan gaalku kitaabkan buu gubay wuu gubay adigii u nasab sheeganay asagu nacayb uu ilaahay u qabo iyo nacayb uu rasuulka u qabo iyo been laga soo buuxiyay iyo aqoon la'aan iyo jahli ka haysta kitaabka uu garanayn oo joornaal u qabo buu u gubayba waxaa laga yaabaa hadii inta kamera laga qaadi lahaa maxkamad la geyn lahaa niman culimo iyo looyaro la isku dar lahaa oo maxkamad la saar lahaa oo kitaabkan loo sharaxi lahaa oo aayado ma taqaan quraan ku jira oo ka hadlaya tawxiidka iyo ilaah iyo rasuulka iyo quraankan iyo aakhire iyo janno iyo naar iyo abuuritaanka wixii adduunkan loo abuuray ila nabi aadan waxaa laga yaabaa intuu muslim inuu ooyo ila naftu ka baxdo oo waxaan jaahilnimo inay ka tahay baa suurtagal oo marka laftigiisii loo sharaxo oo la fahansiiyo inuu yahay shay muqaddas ah oo ilaahay xaqi ka yimid oo caalamkan dhan ila qiyaamaha taagnaanaya oo injiil iyo tooreed bedelay oo nabi ciise iyo nabi muuse bedelay
oo nebi maxamed lagu soo dejiyey oo nebi kale imaanay sharaxaadaas maxkamadda horteeda loogu sharaxayo yaaba inuu ku muslimaa suurtagal ahaan lahayd waxaa la sheegayaa kuwa muslima baaba xataa xabada ridahayay oo gaangis ah oo kitaabkan u arag la dhahayo booliskii iyo ninkanna waxaa la sheegayaa booliska iyo niman siyaasiyiin iyo oo baarlamaan ku jiray yaaba ka dambeeyeyba oo mu'aamaraad la soo alifay oo mataqaanaa ilaa denmark ilaa sweden isku xiran baa la sheegaya dadku saasay sheegaya markaan sweden wacay dad aan waraysay xogtaas ay siiyaan ma aqaan wax ka runa wax ka beena oo barnaamijka ninku kaligiis kuma hayn maxkamad buu tagay baa leeyahay oo ka codsaday kitaabku inuu gubo boolis baa lagu soo diray waardiinaya haddana denmark bay boolis kale ka yeerteen barnaamij Scandinavia dhowr bari kadibna Norway ba haddana kitaabka lagu gubay waa barnaamij saddexdan waddan oo Scandinavia la isku dhaho Sweden Norway iyo Denmark ay isla qabeen oo siyaasiyiintoodii iyo qaarkooda ma taqaanaa aan akhlaaqda lahayn oo maxaan ku raahdaa iska extremistaha ah oo radicalka ah waxaasa ka dambeeyay marka qaar muslima oo xabado wato gaangis ayaa xabadeeyay booliskii adiga waddanka waxaad ku joogtaa ba sharci iyo fiisaad ku joogtaa qaxootiyi mangaliyaad isku dhiibtay waa lagu aqbalay xageed ka keentay qoryahan oo aad booliska ku xabadaynaysa oo haddana aad sheeganaysa inaad muslim tahay oo inaad haddana kitaab ilaahay difaacaysa aad sheeganaysa oo diinta islaamka waxay qabtaa waddan haddaad timaado iska dhibto oo maangaliyo lagu siiyo inaadan wax dhibaataa geysan karin qoriga xageed ka keentay waa illegal way waa criminal xageed qoriga ka keentay oo haddana booliska aad xabadaynaysa adoo lama taqaan kitaabkan baan u araya oo adaaba qaladaad ciidan ka badan galay maxaa kitaab u arta kitaabka wuxuu arahay sidii horta kitaabka shee loogu araya sidii nebi maxamed uu diinta ugu ari jiraa loogu araya yaa loogu dabeen nebi maxamed baa looga dayanaya sallallahu alayhi wasallam rasuulku markuu daa'if tagay oo inta la dhagax tuuray ciyaal iyo dumar lagu dalbaday oo dhiigii ka baxay madaxs lugaha u gaaray oo jibriil u yimid laba buurood ma ku soo ridnaa ayagoo dhan ma baabeena oo yidhi idaay faraa iga qaada makaan u lugeynaya anoo dhiigayga iska wata ayaga carruurtay dhali doonaan kuway sii dhali doonaan waxaas dhabarkooda inay qaar muslimaan oo xaqa qaataan iyaan ka rajaynayaa iska noqo buuray iyo waxbaa ku dumin oro jibriil iska tag nebiga qur-aankii madaxiisa iyo qalbigiisa ku jira asagii baa la dilahayaa waana iska dulqaadanahaya sababka loo soo diraa waxay ahayd qaala tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin nebi maxamed raxmad baa loo soo diraa midkaan kitaabka gubahaya waxaa laga yaabaa jaahilnimo inuu u qabo journaal inuu waxaan yahay oo jaahilnimo oo kitaabka u qabo inuu u gubayo waxaan la kulmay 94 Netherland habeen magaal masaajid aan soo galay cishe nin Netherland ah oo cadaan ah ingiriiskana si fiican u yaqaanay nin kale oo sheekh oo Soomaaliya yiri ninkan waa nin Netherland Cabdirashiid waa nin muslim ah barasho wanaagsan English ma taqaanaa baa eriniyo anu Netherland garan maayo English baa qaana English kan kula hadla marka wuxuu igu yiri 20 sano anoo jira ayaa Roma la geeyay inta Netherland laga waday 20 sano aan baadiri ahaabay maraan barto iyo maraan aan faafiyo waa iska daayay marka 40 sano gaaray waxaan aaday Dubai ganacsadan iska noqday Dubai ban Urban soo joogay 4 bilood nin sheekh English si fiican u yaqaan luqadda Englishka ayaan la kulmo yiri oo hotelka la deganaa ninkaas ay muslimiin yiri hadda Netherland waxaan ku joognaa 3 nin oo Netherland oo cadaan ah oo European ah oo marka muslim ah waa isku tagnaa marka saan sheekaysanaa waxaan ku yiri marka haddii lacag badan lagu siiyo maadaama ganacsada tahay oo islaam ka bax luurama ka baxaysa wuxuu yiri 1 million waa eraygiisii wuxuu 1 million haddii la siiyo 1 million US dollar haddii la siiyo lagama yaabo inaan ka baxo wax dhici kara ma lacag kas dilay siiyo ninkaasu marka intuusan tagin Dubai 20 sano oo u faafinayay diinta Kiristaanka 4 bilood oo sheekhaas uu la hadlay ayuu ku muslim wuxuu yaqaanaa farqiga u dhaxeeya Kiristaanka iyo Islaamka ayuu ila ninka hore Kiristaan u yaqaan muslimkii markuu dhageystay wuxuuna weligii maqal oo arag buso iyo ninkan dhageystay ku dhacaan waxaa la rabaa marka diintan nebi maxamed baa laga qaadanaya caqligaaga iyo hawadaada maaha diinta islaamka waxaad ka qaadanaysaa waa nebi maxamed wadaduu maray baad maraysaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam maxaa yaxya maxaa warkiisa lagu soo gooyay qaala tacaala يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتينا الحكم النبي وآتينا الحكم الصبية وحنانا من لدنا والزكاة وكانت تقية
إلهي مد كبقة أيوها نبي يحيى إله مكبقة وحن تجينا مركا تقوى يا قرآنكم مركو سود دقي ونبي حكوا سود دقي إلى مركو رمادي مركو ووري سود دقي قرآنكم محاو ووري قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم انت أصل علمي برشدي سيوي آياتي ugu dambeysay quraanka maxay markuu nabi maxamed dhimanayay 48 bari culimada qaarna waxa dhan 83 bari ama 83 bari ama 84 bari marka aydan soo degtay intaas kadib uu nabigu noolaa 83 bari ama 84 bari kadib nabigu waa dhintay aayadaas quraan ka dambeeyay ma soo degin qala ta'ala واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قيامه وي وحاد كبقدان واتقوا يوما مالين كبق ترجعون إلى الله إله ليدين علنه وقيامه بلا تاغين ثم توفى كل نفس ما كسبت نف كستا waxay shaqaystay ayaa loo oofinaya وهم لا يظلمون ايضا لدلبينين ايضا لدلمينين قرانكم محو كبلوده برشو maxaa lagu soo xijiyay ilaah in laga boqo واتقوا macnaheedu waxa way iqra bismi bilowga qoritaanka iyo akhriska ad bilowday ujeedada iyo nuxurka iyo macnihiisu waxa way inaad ilaah ka baqado oo maxaad uga baqaysaa qiyaamaad hor istaagaysaa adiga hor istaagay qof kasta hor istaagay deedna wuxuu ku weydiinaya anaa ku abuurtay adduunkan ku keenay nabi maxamed baan kuu soo diray kitaab baan kuu soo dejiyey inaad raacdaan kugu talagalay inaad icaabudaan kuu abuurtay arrintan ma ka soo baxday mise waa diido gaal baad noqotay waa intaas labaas loo kala baxaya qof intaas yeelay oo amalkiisa fiicnaaday hadhowna ilaahay janno ku xukumayo mid diiday oo gaaloobay ilaahay naar ku xukumayo inta u dhaxaysa iqra bismi rabbika alladhi iyo wattaqu yawma turja'un inta u dhaxaysa waxa lagu soo baraya oo rabbi rasuul kugu soo baraya oo quraanka sunnadu ku sheegaya waxaad ku biqi lahayd oo intaad ku baqdo aakhara marka tagto aad ku baxsan lahayd naar kaga baxsan lahayd jannada ku gal lahayd ilaahna oo raali kaaga ahaan lahaa hada kitaabkii maba taqaanid ma xafisanid waa ko macnihiisi ma garanaysid waa labo ma ku dhaqmaysid waa saddex haddana gaalkii guba waa la diriraysaa waad xabadaynaysaa marka kitaab adigii u nasab sheeganaya aad dayacday hadduu gaal gubo mayada la yaab wax lala yaabo mayada ah nabi maxamed bay badilahayeen sallallahu alayhi wa sallam oo caayahayeen oo aflagaadeynayeen oo dakhrayeen nabi ibraahim bay dab ku rideen inay dilaan ay rabeen وحال ربا مركا كتابك قرانكا ميشو يالا مانتاي waxaa dhigay muslimiinta gaaladu ma dhigin inay dhigan tusaale cad baa insiinaya yaa sheegi kara hal wadan oo islaam ah oo kitaabka quraanka uu yahay dastuur u yahay oo ku dhaqma oo isku xukuma yaa sheegi kara caalamkan 221 mise 224 wadan ayaa caalamka ka jirta hal wadan oo muslim ah oo kitaabka iyo sahih bukhari iyo sahih muslim lagu xukumo oo gaalada caalamka dhan ay og tahay oo muslimka caalamka ay og yihiin oo arintoodaas banaanka keensaday oo ku dhaqma yaa garanay ma jiro way marka kitaab dadkii iska lahaa ay faraha ka qaadeen xafidaadiisi oo macnihiis inay bartaan faraha ka qaadeen oo inay ku dhaqmaan oo isku xukumaan ay faraha ka qaadeen oo xataa in badan oo kamid ah aysan rumaysnaynba gebigiisaba aysan rumaysnaynba oo ay qaarkood u qabaan sheeka carbeed iyo gabay carbeed waxa weeye marka kitaabkii saas loo galay oo muslimku saa u galeen ayay haddana gaaladii ku sii xabadeynayaan haddaba marka waxa weeye kitaabku wuxuu u baahan yahay ilaahigii soo dejiyey nabi maxamed buu ku soo dejiyey siduu
kitaabka markuu soo degay ilaa marka dhintay uu kitaabka u dabakhay oo baraktiis ugu sameeyey oo ficil ugu bedelay in waddadii la qaadaa la rabaa maahan qardajeex iyo aniga waxay la tahay maaha nabiga ilaahay muxuu ku yiri qaala tacaala ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أدي النبي محمد وحن كو حيون النبي إبراهيم أطرع على النبي إبراهيم بطرع عيسى أوجا إبراهيم وددي سي توحيد كيسي بتقص عنا يساوي أنا جانا محن اللي يري مركب هدي النبي محمد الله أمره إنه النبي إبراهيم أرعاه أوجس وتوحيد كيسي رات كيسي وقاضه أننا مؤمنين تا مسلمين تا إلهي وحنو أمره قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه رسولك وحو إذن أمره قاتا أمر كيسو سمايا وحو إذن لو كفو قال هو دوان كعرر هاي مسلمين تلبدا بليانا ما سمايان مركا مسلم أساق يقال كي كتابك قوي وح أولحايا أون أشهادك أهين أي سنجرنين ميا كو أن دعون كرا أو شاقان كرا نبي محمد وحي أمرين واحراعي وحي إيقا ريبانا واكهارا وأمايا وبين تاوي قال تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون باطل كميات رومانيسان أفبالباطل يؤمنون ما باطل كانت رومانيسان وبنعمة الله يكفرون إلهي النعمة دي سنة ما كو قالوا بيسان والنعمة إلهي كوين إنه إلهي إسلام كادغي أو مؤمن كادغي نعمة كوين أدونك جوكتا مجرتو أو كتاب قرآن سنن بأوكسية محامرك انت اللي اسكدايا كتابك يا سنودي انت اللي اسكدايا يا نعمة إلهي وشاق انت اللي اسكدايا أيا محامركاس حوق الله ساري أو مسلمين تلمد بلينا حوق سارين إنه قالوا اسكدا بقلان قال تعالى بل هذا قال دبق شيء فيه هذا قال تعالى أيضا دقيس مركا قال ودبق شيء وأن كم من أنت يسمى قرآن كنا وكتكت بل هذا أيضا دقيس قال ماش أوضم بيسا قال تعالى أفمن وعدنا وعدا أفمن وعدنا وعدا حسنا فولقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين إلهي وحو يري يبوهاي كوا راعي أو يبوهاس إنو حقيهاي انت الرميي وحي أن يبوهاي كسو بحي وأمر كان سيقاتي وحان كرهبنا كهاري إيو مد الدنيا دان كوركيدا دور كبير أو نوليهاي أن نبعيي آخر مركو تغانا لسو جوجيناhay maxaa la soo joojin naartii cadaabkii baa la soo joojinaya naartii baa madax loogu tuurayo naarta la gelinaya yaa marka keeba fiican marka labadaas qof inta ilaahay diin iyo iimaan siiyay amarku ilaahay adduunyada ku siiyana qaatay aakharna ilaahay raalli ka noqday jannana uu geeni markuu xisaabiyo mu'min noqday iyo mid 60 sano 100 sano 150 sano 70 sano 40 sano inta loo nibciyay adduunyadan xoogaagan ma taqaana khamradiisi iyo ma taqaana xashiish iska caabay markuu baqtiyana nafta laga qaaday naartu lagu bilaabay ila waligiis yaalis uu naarta ku jirayo keeba fiicnaan badan hadaad aqli leedahay oo aad wax garanaysid tan waxa fiican qofkaas ilaahay wacyigiisi yabooh ilaahay raacay kadibna adduunka nolosha iyo tan aakhiraba guuleystay qofkaas fiican midka noloshan gaaban oo dhow oo ayadoo dhanba 60 sano daad sanabi ku sheegay macnaha boodboodahay kadibna waligiis calaabnaanayo markaas wax la daba gala قال تعالى رسولك إله الله هذي بلغيساد أو كهذا يا مسلمين تقول النورا
iyo annaga iyo ilaa qiyaamaha muslimka imaan doona nebigiyo dacwoonaya oo ummaddii loo diray ka dacwoonaya ilaahis u dacwoonaya bal dhegeyso marka qaala tacaala وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ويبكتك إلهي أبورتي ومضى إيدرتي ومد النبي محمد هيد وأبو بكر يذكر الله لا يا ساعد أنا وحظي إلى قيامة ذلك ويوحوا قال النبي ومد إيدرتي والنبي محمد آخر وسمانك ومد دونك ودن بيسي أو كتابك القرآن كأسد جيسي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآنك ويكتك قوم كي ومد النبي محمد قرآنك إلهي وانعن وكتك بوي xagee aadeen gaala iska daba galeen iyo dhaldhalaalka adduunyada iyo khamrada iyo xashiishka iyo mataqaan waxay walaaqanayaan bay wax fiican u maleeyeen isqaawinta iyo tuugada iyo xashiishka iyo baasha la dhaho maxay ribada iyo tuugada iyo dadilka iyo maxaan ku raahdaa waxyaalaha akhlaaq xumada heesaha iyo gabayada iyo filimada iyo maxaan ku raahdaa wax alla waxa ilaahay uu xaaraantinimeeyay oo gaalada ku dhaqmayaan bay wax fiican u maleeyeen xaaraantiiba iska iyo gaaladii iska daba galeen wixii xalaasha ahaa iyo wanaagga ahaa iyo amarkii ilaahay uu faray iyo akhlaaqdii fiicnayd iyo suluugii iyo cibaadadii iyo tawxiidkii iyo wixii oo dhan waa ka tageen adduun iyo gaalo iska daba galeen malcuunkii shaydaanna waa qurxinaya oo ninkaasna wuxuu ku darhayaa ilaa hore ilaahay ugu ballan qaaday inuu aadan caruurta dhuminaya waa suugeynayaa baraafuun iyo wuxuu ku sii buufinaya wixii xumaan iyo mataqaan xaraamtii buu baraafuun ku buufinaya waa u carfinaya si u soo raacaan aakhira markii la tagana wuxuu leeyahay anu ilaahay shaqul kuma lahayn xagee baan idinka ugu arkeen waxaan u tagaynaa marka قالكي كتابك قبيل أتقينا مركا قال تعالى قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما إن كنتم صادقين كتاب كان قرآن كان متكفي عن الله صلى الله عليه وسلم محمد كلها بقى إلهي ليه قلنا قريش هذا مكان كاسو صاري وانكور أدق هذا حيان كتاب كان قرآن كان متكفي عن ميس كاسو صارن وإلهي حق سكيم من أيو سوقرتين لمرة إلهي حق سكيم ما حيان هديسا مركا هينين فعلم أنما يتبعون أهواهم هوذو ذي راعيان وهذا كان كتابك عقب هوذيس يوحي قرافات كي بينتك وأخرية وبين أشياء أيوه عقب أوجد لكن وح علمي مو هيو وإن كتاب قرآن لقباه من تشرو من كيني كرو فاعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير علم يا baadinimo badan ma jiro way cid ka baadinimo badan midka hawadiis iska daba galay ilaahay cilmi ka yimid iyo xujo ka timid asagoo haysanin ayuu hawadiisa iska daba galay فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ظالم كان وحوي قوم كظالمين تا إلهي مهن يوي قفك مركو دالني يهي حد قدو بدن يهي أو ظلم بدن إلهي هنون كسو كديرين يوي إيساو وكاس أبال كيسنا محويا مركا قال تعالى ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم أبال قد كيسو وحوي جهنم
محوكم متيست بما كفروا ارتووا قالوا به ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات كي القرآن كانوا وحوكياشا وبقبيا واكن قبيا آيات كي أساق الله تلقى intuu nool yahay barto oo rumeeyo oo ku camal falo oo xafido oo neem xun loogu soo dhiibay asagan Swedishka gaalka ah kitaabkii laftigiisii uu ku hanuun lahaa adduunka oo cara ilaahay iyo cadaab aakhiro ka baalaha buuba gubayaba inta kuma koobsanee bima kafaru wattakhadhu ayat wa rusuli nabi maxamedna waa ka hadaad nabi maxamed beenisana rususha dhan waa beenis إلا النبي آدم واد بينس إلا نوح نبي أطهر ما يسمى له النبي محمد بينس كل واد بينس رسول سيدنا وو بيني واتخذوا آياتي ورسولي هزوا وليبا تشاس بو كدغتا يا عيار كتابكي لو غبو كتابكي لو هلا صار كبها بوت كلو ولا تونتو مسقوش لو ريدو لا جاحجاحو قشن لا دول دغو وكا إلهنا مركب محيره ذلك جزاء جهنم بما كفروا وقالوا واتخذوا وحكيا شيء آيات كي قرآن كيو سنة النبي البخاري يما تقال مسلم أيو وحكيا شيء يو رسول شيء أورن نبي محمد أيو وحكيا شيء وحكو تشتشا كل عيار آيات كلا قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويستعجلونك بالعذاب قال دي بأسور دي سبع عذاب بأسور ديان أسور دقدقيان بإلهي إنو عذابه إلهي إنو عذاب أسور دقدقيان أيها بأسور ديان قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع من الله قال باب إلهي عذاب ويجسني حلق النبي محمد إلهي وكبره عذاب سأل سائل بعذاب واقع عذاب كسر عذاب يبريها يا جاهل لمن بل انت كور انت اسلاك ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون حدان مالين إلهي وبلمي أو قيامها عن إلهي لسوغين تي وحلو كين لها عذاب كأيوان دريمي بلو كين لها يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم الله محيطة بالكافرين بإلهي جهنم ويدقدق سنة ينبا لكن جهنم وكفل أنت وانا كوبيسا قاوة نبي كوبيسا كل وضع عروش انتي قشطوه ويكون رستي أيوة نبا ما تقانا يي كلا فيقيسا أو كلا قوقوينيسا يوم يغشاهم العذاب مالين بالعذاب هي من فوق يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون مالين وحدا عيسى لعذابه قرب لغا عذابيا خوص iyo lugaha waa laga cadaabaya markaas waxa leeyahay markii korna ka gubtaan ka guumacaan lugahana ka gubtaan iyo ka guumacaan oo kor iyo hoosba laga cadaabo yaa waxa leeyahay dhuuqu ma kuntum ta'maluun waxaad sameyn jirteen weeye intaad sameyn jirteen oo jahannaba idin noqotay kitaabkii quraanka ku istaagayseen kitaabkii quraanka ay kabaha buudka kula tumaneyseen kitaabkii quraanka gubayseen kitaabka qashin ku rideyseen kitaabka jeexjeexayseen amalkaas isaga adduun ku soo sameeyeen isagiiba jahannaba ilaahay idin kaga dhiga iyada marka dhex joogtaan dhex boodbooda markaas arag marka jahannamo xoogaa shiiqday oo dabkii demisay oo marka dabkii la kordhinayo marka arag qala ta'ala ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم النار مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
ilaahay wuxuu yidhi waa markay xoogaa shiiqdaba waa kordhinaya, dabkan u kordhinaya, waa la shidaya, waa la isaaraya. malaa'igta waxaa lagu amray inay dabka u kordhiyaan oo ay kordhiyaan kulaylkii, inay sii kordhiyaan. xoogaabay kulaylkii dhintay, waa la sii kordhinaya. markay inay xoogaa yaraysa kulaylka damacdaba malaa'igta ilaahay amarhaya li u kordhiya, kordhiya kulayl badan ugu dara, intay ahayd jahannamo sii kordhiya. waxaasaa marka sugahaya dadkan. hadda way iska cayaarahayaan, qosol bay kaga caddahay, midba mid kaluu la hadlahayaa, midba mid kaluu mataqaanaa arrintan kusii dhiirigelinaya siduu mataqaan arrintan usii sameeyo. laakiin markay xagga tagaan maxaa ku dhacaya? qaala tacaala, bal nebi ibraahim oo la hadlaya dhegeysa marka. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواهم النار وما لكم من ناصرين. waxaan hadda aad isku sheegaysaan oo aad ma taqaanaa ilaahiya beenbeenaadka iyo waxyaalaha adinku aad isugu faraxsan tihiin oo quraafaadka oo ama saddex ilaah ama hal ilaah ama hawo adduun ah ama waxun ah oo midba midkiina kale u sheegahay, oo hadda isugu faraxsan tihiin oo isugu qoqoslaysaan, isugu sacabinaysaan, oo isku gurubaysaan, isku kooxaysanaysaan, isku wadamaysanaysaan. xagga markii la tago waa la kala cararaya qiyaamihii, midba mid buu ka dhuumanaya. hoogay ba'i baa ku dambaynaysa iyo midba mid kale inuu habaaro. ilaahay ma ka gardaran yahay marka oo dadkan ma iska cadaaba ilaahay? may ilaahay iskama cadaabin. nebi maxamed baa loo soo dira, asaguna 20 buu kitaabkii qur-aanka Sweden maalmo ku is istaagahaya. ilaahay marka waxa ma gardaraysto. qaala tacaala, bal hadda aayadan dhageyso. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إلهي وحير وما كنا معذبين حتى نبعث في أمها رسولا. إلهي وحير ذلك اسكمع عذاب أنه إلا ما مقالدود ugu oo caasimada aan uga soo bixiyo rasuul oo nebi maxamed Allah keenay. quraash magaalada ugu weyn maxay Maka, Daa'if baa ku xigtay. Makadii baa rasuul Ilaahay uga keenay, rasuulkaas oo aayadaha quraanka ku akhrinaya dushooda oo u sharaxaya anigu waxaan ahay, adduunkan waxaan u samaystay, nabi aadan waxaan u sameeyay, iyaga waxaan u abuuray, janno iyo naar waxaan u sameeyay, in la caabudo. waxaas oo dhan baa nabigu iloo soo dhiibay. wixii bay diideen marka aakhira markii la tago. fiir kuwii hadana ma taqaana iimaan darrada ilaahay inta iimaankii ka qaaday, kuwii raba ilaahay inay been u sheegaan oo hadana ilaahay u cabanaya bafiir oo marka raba inay ma taqaana ilaahay been iyo ma taqaan quraafaad kuma weeliyaan. oo hadda rasuulkii waa diidan yihiin, hadhow ilaahay maxay la hortagayaan? haddaad rasuul noo soo dirto waa raacayna oo dadka annaga mu'miniin baan noqonayna. qaala tacaala, فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إن بكل كافرون. آية اسمها آية ككريسان ربي. قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
waka markay musiibo ku dhacdo musiibadu isagama dhicin dhib baa gaaray ayaga waxay ay samaysteen awgood baa ilaahay dhibka ugu riday waxay leeyihiin ilaahay haddada rasuul noo soo diri lahayd oo rasuulkaas waan raaci lahayn oo waan rumayn lahayn mu'miniin baan noqon lahayn oo rasuulkii waa yimid waa la soo diray waa nebi Muxamed 1442 sano ka hor baa la soo diray 43 hadda bilaaba mis 42 hadda lagu jiraa Sweden buu kitaabka ku gubahaya 1442 sano ka hor kitaabka rasuulka loo diray buu hadda gubaya ilaahay hadhow markuu hor tagana wuxuu leeyahay ilaahay hadda rasuul iyo kitaab aniga isoo dir lahayd mu'min ma noqon laha anaaba Abu Bakar baa la tartami lahaa nin qataraan noqon laha waa been aan waxba ka jirin way hadba meeshuu joogo inkirahay hadda adduunkii buu inkirahayaa oo nebi Maxamed iyo rasuulkii iyo ilaah ku inkirahayaa hadhow markii qiyaamaha la tagana qiyaamadu inkirahaya oo wuxuu leeyahay meeshan anu ilaahay oo cadaalad daraan ku jooga igu haysta dhibaato igu haysata maxay tahay dhibaato ku haysata hadda anu rabbi maan diidin rasuul ma diidin quraan ma diidin maxaa diidin kitaab kuwa muslimiin oo Soomaali kule madmadow oo dhinacan oo eeg carabta dhinacan afrikaanka oo eeg kitaab ay wateen isu dhigay maalmo la urureegayeen kiiba anu gubay macnaha anu waxba ilaahay dambi ma gelin waxaa soo raba iyo beentaas iyo afmeesharnimada iyo tuugaas inuu ilaahay la hor istaago ma ilaahay ba marka la qiyaami kara قال تعالى بل هذا آيادان دقيسو ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ومن الناس من يقول آمنا بالله قربا وحلي مؤمنين بنا مسلمين بنا هاي فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله حدي الله دبه أو بن آدم كل دبان أو دين تإله درت الله دبه صونكي صلاة حجكي لبسكي قميصك أي وتين باللوجو دبه هيا أما شقدي اللوجو عيرنا هيا أما واللوجو أفلاج دينيا أما متقارن هديره ولا وقع عن قاضية دهنا أنت هجر تدخل وجستين بعذاب قيامه أو جهنمه أيوه كلام مدقة هيا إن عذاب كاسو يرجع هي جهنم وأدون كان حوجا كان متقارن أما بطلة أما فيرك أما رباحة أما متقارن وعجب شغلينته وبين آدك أيوه أنت كبقه أو دينتي كتره أيوه قالوا بيا قالوا دي كل حد رمها أما مسلم بوسكوية قانا وحمى سمين هيو قالوا كبقه هياي مركو جوريس شو وحلي إله وأنا يجو وبقى هيا مهنا لكن مسلم بانا هاي ما قالوا بين آدك أسجل لم يدو كبقه هيا وحو كبقه هيا حوجا رباحية حوجا فيره إلهي مركا محير أوليس الله ومنافقين تي أو مركي وخير له له وعليه رسولك وإن كل جرنا مركي نبي ماذا وعرها يعني مركز إلهي وحير أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين إلهي قلبك بني آدمك قديس وحا كجرة أو كفكري إنه إلهي أوجيه ميشن أوجي مركا مسلمين تهدى مركي عرضك على صوق قلين هذا أنو نيرلان كام كمركان صوق قلين إسلام ويله يا جبر عيد شيء أو إسلام إسلام تونا لحنا كما يرى تضباطا جبرونا لبعتين شان صدمية أنت وده حيسوي وحب إيران بكين ده كان إيران لره وحيب صوحر تنبه الكي سليبكي كروس كي بصوحر تنبه وحيد أنا وقالنا وحير من حوجا إن الوصيو أما شرعي أما ساس ومركي اللي صومالي أي سجاشي يكون صوق لين رجال بيتك كندا أستراليا مريكا يوروبا إن بدن باقالودي أنا واجاس وحن أركي نين صومالي ما أركي جورجي سانتجي نيكي لدي جناب أي ورمي وعيري أضي صومالي أفرتنشرة وقالوا مركو صوق إلى الدكان صار مقال بالدكان تاس محاسبة يبناك كاسعد وقبوي وهذا مقال بقول كل سعد قال بقول كل سعودي لفتي أنا شك وشرا بنقول هذا بقال له رديد بقول ساحتي والصومالي أفرتن بوشرا صومالي وكيمد وأنا قالوا بها محو قالوا بها حبذ روتي وكاس هذا وحور رب إنه إلهي وأنا متقن قال هذا وكبقى مسلم بانسكا هاي وبقيون
ووح لقى بقرة مجرته وقرافات وي أنا إذن الله يا واقعس قوة تضبه بوحان فير لح بلود جوه لح بلود بوحان كفير تضبه لبع عداني يشن مذوق وحان يقدري لو إنه بادريال بقى يقدري وحان إني كان كتاب كهايست قرآن كسك آخرنا هيا يسكون اسمان دقنين حوغا ما تقاني كان ويرر كوقال كوي مذوق أيو صهر مراي markaan ayaama ka wareegay markii dambe xeer baan u dajiyay indhaha markaan saaro habeen musqul banaan meel kasta indhaha hadaan saaro inaan feer ku bilaabo markaan indhaha saaraba ilaa ma markii dambe ay gaareen madowgii markay i arkaan inay fariistaan dhaqdhaqaaqa joojiyaan laba cadaana sidoo kale u gala waagi dambe waxaa noqday nin ilka aragta markii laga arka lafiisa looga cararo labadii baadari ma soo noqon way arkeen meeshaan meel la geli kara inaysan ahayn bannaan baa iska marsiiyey qofkan aduu kula mid yahay hadduu ku feero aad magac ma waa qabtaa maa feerti kii ugu horreeyey sa'ala saa'ilunta idiin sheegay haddaan u akhrisanayo buu daaqad xiray samar bay ahayd waryaa daaqadda fur baan ku er ayagii buuna ka soo tegey markaas labadii baadari labada baadirna waxaan ku warnimay war ma idin sheegaa joornaalada ay soo qoraan qoladan baadiriyaasha adinkeeda xukuma weeye laakiin meesha diin kuma haysan diin kitaabkan quraankaada ah adinka kitaabkii injiilna waad bedesheen tooreedna waad bedesheen joornaal aad soo qorteen baad anaga noo wata diin nooga dhigaysa waa kan qaataan ku eray markaasay dagaalka bilaa markaasay dhaheen ninkan ila dilo weey xal kala ma leh شاكدي مركي ودن بيس حبط بيكارتا على أي حال هذا وقصة هذا أنقلنا أيضا لفت كذا محاضرة نقونيس حبط بيكارتا مركي دم لكن إلهي ويجبت بادي لكن أنا مالك عن سومالي كيمد أو صقر يا سعد عن حد وقرك عدد أودي وياه حل البرقسي وحبك كيم بدل أنا وصلني ماضي حل بن أقامدين ولا قال ولا مليونس قال هذي ماذا حل إن الحوس وقعنا كرب حماني حل عربين هوس دول لقى يابو waxay gaal qaadi karaan iyo waxay yihiin male qof muslim oo muumina gaal wuxuu agtiisa ka yahay iyo wuxuu ka qaadi karo iyo wuxuu u geysan kara midna mala 30 sano si jooga Yurub 30 sano todobadaas feer ma ahane iyo toos ma ahane wax kale igaaray male boolis xun daba socdo ama kamera iga duubta ama ma taqaan mar su'aal i weydiiyo oo maahan iska tagay wax kale igaaray male marka dad waxa uu liita qof gaal انت كبقه الهي كبق وقال كبقه بعض اقوليت waxaan kaga baxayaa warka sheekh maxamed sheekh cumar dir afartiisii xigmadood oo Soomaalida caruurta si loo tarbeeyo oo hargeysa kaga hadlay شيخ وحسوقات لبا حديث وصحيحة وبخاري مسلم كويا له هي قصة قبر كل عضي هرجيسة كجنا عضي أيدي موبايل كذي إنترنت كذي أحمري إيوه واردك الماء يركا مركي صومالي يريهين فكر كخبان واردك الماء يركا لما حديث بن وهر مرينا حديث وعير شي محمد شي عمر در وعير النبي صلى الله عليه وسلم وير أيار راشين لعناي ilmo yarde waxa laga hadlayaa 2 sano iyo ilmuhu marka uu raashinka uusan meel laga cuno aqoonin way gacantu la galay marka dhinaca nabigu raashinka ma taqaana meel kasto xeerada gacantu dhow walbay ku haadaysa waxa lagu yiri ya gulam qul bismillah horta bismillah hayda marka hore bismillah inta raashinka aadan bilaabin bismillah baa la dhahaa waa ko marka labaadna waxa weeye gacanta miigta raashinka lagu cunaa marka saddexaadna adiga hoostaada meesha ku dhow baa laga cunaa meelahaas kale gacanta bidix iyo midgi hore lama aado nabi wuxuu raashin la cunaya ilmo yar oo 2 jira ama 3 jira ama 4 jira inuu anas aha u badan tahay saasa laga yaaba marka wuxuu sheegayaa shi maxamed shi cumar dir wuxuu sheegayaa sida ilmaha yareerka waa yar yihiin maxaa wax loo sheegaya markuu 10 sano gaar 15 sano gaar waxa loo sheego laakiin 2 jir maxaa loo sheeg nabi maxamed loo jir amar siinay
كل بيمينك باللي أمر بالصين يا وكا حديث كلا وضوح وي وحير الشيخ ويلكي حسن ووجه وقبل فاطمة ده شيء أو علي ودالي رضي الله عنهم دمانتهم أيا تمر سكاء هيد أيو قاطي أفكل عاديدنا وحكويري اسكتف تف أو تف أنا سكده حرام بين نجاتي هذا أهل بيتك أنا يوحنا الله يرهر ما تقان وحي مسلم أهل بيت وحلا لها ريب بني هاشم أنت كمسلمتي ودينتك قاطي بالله أهل بيت بني هاشم وحي ما تقان مسلم كانوا قضي ودينتك قاطي سككوا بحضو مركا حرام بكاتي تمر تف اسكتف وريا وطفي وكاس والمير وافر سنه كير 3 سنه 2 سنه يبر ميلها قصه gabadhu waxay gabar baa waalidkeed waxay ku tiriyeysay Sheikh Maxamed Sheikh Umar Dir sheegayo hargeysa internet xoogan oo powerful waalidka liiso galeysay taxaamad iyo wax assignment-ga uu diyaariyo deedna waa loo soo galiyay kadib Norway ka dhacday qolooyin gaalaha oo internet-ka ka heshay bay la sheekaysatay ilaa la yiri marka aad say oo diintiin laga saaray la gaalaysiiyay safaradeedii iyo baasaboorkii wixii markii ay diyaar noqdeen inay safarta ay noqdo waxay ka soo dhow yihiin umba ilaahay soo arinta u fashilay ilaahay waxba kuma ahane hooyadeedii ayada wax wada hadlay deedna markaas ay wixii ay show gaalada ku akhriyeen bay hooyadeed u sheegtay oo diinta islaamku dumarkay gumaysataa iyo yaa sheekhu sheeg waxyaalo noocaas wiilashii ka weynay aabaheed dadkay ugu yartay culimaa loo raadiyay wixii dhan baa la ogaaday internetka la daba galay shirkadii Norway iyo baasaboorradii wixii dhan bay sheegtay deedna muslimka lagu soo celiyay halkaas marka waalidku kama warqaba caruurta internetka waxa meelaha ay galaan hal laga warqabo Sheikh Maxamed Sheikh Umar Dir qodobka ugu dambeeya waxa weey ilmuhu markay yar yihiin buu Sheikh Maxamed Dir waalidku waxay u qabaan ilmuhu ha erayga sheekhu isticmaalo waxay ahayd caalamka dadka waaweyn ayaa waalid ku nool yihiin buu ilmuhuna caalamka dadka yaryar bay ku nool yihiin buu sheekhu macnaha wuxuu ka wadaa ilmuhu asagoo yar ayaa la rabaa inaad tarbiyada ku bilowdid oo diinta baritaankeed ku bilowdid oo weli tawxiidka uga bilowdid oo nebi maxamed laba jir raashin la cunay amar siinay oo mid yar uu yahay dhahayo timirta iska soo anaga xaraam bay naga tahay marka wuxuu Soomaalidu ilmaha yarka waxay leeyihiin buu kulii waxba garan maayo waxba ma oga qalad kasta ha sameey iska daa markuu weynaad iska deyn doona qaladka waxba loo ma sheegi karo wuxuu fahmayaa malaha waxa looga sheegay ilmaha yarka waxba garan maayo ilmaha wuusan hadlaynin laakiin wuxuusan garanaynin malaha هذا ترى واحد واحد اسكده واسكده هذا ترى واحد في عصمه وسمه هذا ترى تكون هذا ترى قرآن وآخرنا أنا واحد أركي عنق ترى ما قال بسنو أو تركش أو ياسين كي يقانا بان أركي أنا كده جيستي أفرتاس حكمنا واحد شي محمد شي عمر در حكمة دي أنك سوق قري هل كاس ما أنت واحد نوجود لما ذي أرنتي أنك جهل هي كتاب كي لو جبي مالمو iyo muslimku haday rabaan kitaabka inay u hiiliyaan waa inay quraanka xafidaan waa inay macnihiisa bartaan waa inay ku dhaqmaan waa inay rumeeyaan wadamadoodina waa inay intaas kitaabka ay xafidaan oo hadana ay macnihiisa bartaan oo hadana ay ku dhaqmeen oo hadana rumeeyaan wadamoodii inay ku dabaqaan oo wadamada muslimiinta la bedelo say hadda yihiin oo wadamo muslim laga dhigo saxaabadii xilligii nabigu dhintay أو بكر يا عمر يا عثمان يا علي سيدي نلاشوا أي أحد مسلمين معناه رجع كدم بي سياس إن لوجو عليوي إن لوجو علينا وح عدق معهن أو صحابتي بناء أنا لمدة أهين وحيينكم مسعون وحيي بي ما تقنبي كان أحلان بي يدبخن أو سيدو يهي أراعن أنا وحنا الكربة أفرتس إنا سمينه إنا القرآن كحفظنه إنا معني سبرنه إنا كل قنه إنا رمينه أيانا الكربة أنت هذا سمينه waxa isbedelaya hadalkanaga waxa isbedelaya ficilkanaga waxa isbedelaya labiskanaga waxa isbedelaya dhaqankanaga waxa isbedelaya xanaaqanaga waxa isbedelaya farxadanada wax walba isbedelaya maxaa gaaladan ba noo keenay gaaladan waxa noo keenay ayagoo diintanadii inta nagala diriray oo muslimiintii xoog ku qabsaday markii muslimiintii jihaadkii iska daayeen oo jihaadka muslimiintu maxay u daayeen waxay u daayeen barashadii diinta daayeen markay barashadii diinta daayeen maxaa soo haray jaahiliin baa isku soo haray jaahiliintina maxay isku qabsadeen markaas xukunkii islaamka isku qabsadeen
oo jaahilka siisa wax ka xukun jecel male ilaa waxba garan maayo xukunkan in dhib ka soo gaaraya mooga wuxuu qabaa meel khayr oo lagu cararo qofka diinta islaamka yaqaan xukunka waa ka carara sababtoo aakhare wuxuu yahay in dhibaato badan ka soo gaarayso markaas waxay u kala baxeen qabiil qabiil hadda dhaqanka muslimiinta oo carabta ugu daran tahay Soomaalidu ay laba tahay ugu daran oo ka jira waxa weeye inta diintii iyo kitaabkii iyo sunnadii xagga la iska dhigay ayaa dhaqanka lagu dhaqmaa waxa weeye waa qabyaalad iyo reero iyo qabiil iyo kooxaysi iyo group oo haddana gaaladii lagu lifaaqan yahay oo gaaladii lagu dhexlaban yahay oo gaaladii laga sii horeeyo oo gaalba haddii la waayo macnaha lama noolaan karo labada bilyan muslimka waxay aaminsan yihiin haddii gaal umash joogin caqli ma joogo haddaan gaal meesha joogin dhaqaale ma joogo haddaan gaal meesha joogin nabadgelyo ma joogto haddaan gaal meesha joogin farsamo gacmeed iyo mataqaan horumar technology ma joogto haddaan gaal meesha joogin wax lagu dhaqmi karo oo dadka ku kala bixi karaan oo sharci oo la fulin kara ma jiro maxaad maqlayseen maalin dhaweyn kuwa dhahaya dhuusa mareeb tagi mayne gaaladu hana dhexdhexaadis annagoo dhan dhuusa mareeb isku tana Soomaali isma fahmi karne nimanka xal la fadhiyo oo kufaarta ah hana dhexdhexaadiyeen halkaas waxaad garanaysaa warka idiin inuu run yahay macnaha gaaladii bay ku dhex qasmeen way ku dhex milmeen muslimiintii markaas waliba waxay ka dhigteen gaaladii waxay ka dhigteen inay yihiin hogaamiyaashooda oo ruuxiga ah meeshii rabbi iyo rasuul laga raacay Abu Bakr laga daba gal lahaa gaaladii bay waxay ka dhigteen hogaamiyeyaal oo hogaamiye diineed mid ruuxi ah mid aqli ah mid dhaqaale mid technology mid siyaasad mid wax walba markaas muslimka soo laashay wuxuu ku leeyahay gaal in la helo maan waxba noo socon ma hayaan maxal la yahay marka waxa la leeyahay dad muslimiin ah oo inta iswaafaqa oo diintii barta oo ku dhaqma haddana ficil u bedela xagga waadada hadda ay ku leexdo shacabka muslimka hadda ka hadlay waadada hadda ay ku leexdo waadada muslimiintu waa labo kuwa boqorada ku xiran oo boqorada lacag ka soo qaata wadan kastana nin wakiil oo jooga oo lacag siiya ama mushaara ama xooga u cantoobiya ayuu boqor ka soo cantoobiya quraankii iyo sunnadii nabigana cantoobadaas baa lagu gatay kan boqorada ka soo qaadayo carabka ah ama madaxweynaha ka soo qaadaya midka kale ama afrikaanka ama eeshiyaanka ama carabka u sii dhiibayo lacagta la siinayo diintiisa la gatay Soomaalidu marka maxay kala raacsan yihiin Masaarida iyo Sacuudiga sheekh ka soo Soomaali aragto wuxuu ku dhamaadaa ama Masar ama Sacuudiga waxay leeyihiin Masaarida iyo Sacuudigu niman madaxweyne ah oo culimo ah oo ku xiran madaxweynaha boqorada lacagtan ka soo cantoobiya markaas aad waxa maqlaysaa firqadan diinta oo Soomaaliya joogta ninka xukuma wuxuu fadhiyaa Masaarida firqadan Soomaaliya diinta ninka fadhiya wuxuu fadhiyaa Sacuudiga marka diin Sacuudi iyo waxa jirta iyo diin Masaari ba jirta laakiin diintii Ilaahay iyo diinta Maxamed iyo tii Abu Bakar iyo Umar Usmaan Ali waa laga leexday mid lacag ku bedesha mid kursi ku bedesha ma taqaana mid wax qabiil ku bedesha ayaa la noqday waa fara ku tiris sheekh Soomaali ah oo xor ka ah Masaarida iyo Sacuudiga oo aan lacag ku shaqeynin ama kursi ku shaqeynin ama qabiil ku shaqeynin waa fara ku tiris Sharif Cabdinuur oo kale Allah u naxariisto Sharif Cabdinuur oo kale Allah u naxariisto Sheekh Sharif Cabdinuur oo kale Allah u naxariisto waa fara ku tiris Sharif Cabdinuur wax soo raaca waa fara ku tiris ba idin leeyahay iska ma hadla hadaad ii qabtaan ninkayga aan garka iska ma hadla anu waxaan soo qotomiyay oo soo baaray oo soo shiilay oo soo ogaaday oo salka soo taabtaan ka hadla aniga qabiilkan ku takhasusay oday kastoo Soomaali baadiyo jooga inta hadda la sheekaysto anoo buug waxba ka fiirin baan oranaya adeer qolomaata ayaa ka siita ila ayadiis baan wadahaya siyaasadda ilaa 97kii waa ku dhex jiray waa meel ana wicin iyo qolo ana la sheekaysan waa iska yiriyeen golihiisana xataa saaxiib baqaar la ah oo kula sasabar la xukumi jiray waxaway marka diinta Soomaalida waxa xukuma oo dhoomid gareeya Sacuudiga iyo Masaarida laakiin aniga diinteeda Ilaahay baa xukuma wala Masar baan xukumin wala Sacuudi aan xukumin wala sheekh Sacuudi aan xukumin wala sheekh Masaari aan xukumin wala diinteedan lacag ahayn haddaan lacag aan ma taqaana diin ku gadanayo
ama siyaasad ku gadanayo ama soomaali ku gadanayo dhulkayga nimankan la joogo ingiriis iyo gaalaba adduunka ugu lacag badan intaas sharba iisoo bandhigeen jaajuus inaan u noqdo lacag siiyaan waa ku qosla aniguna ilaa adduunka laisma yaqaane waa jaajuus had ayagu maahan madaxweynaha kaa dhigaynaa iyo shaqo kale jaajuus noo dhaqan wey waxaan ku yiri ma geeyo aabahay cali mir wuxuu yiri allah u naxariistay mid baa wuxuu ku yiri markuu xamar ka tagay soo suudiyo tay wata 1902 buu dhul samareeb tagay qolor reesha Xuseen Leero aan ka dhashay waxa mid ku yiri ceelka ilo shub cali miro halkaas wuxuu ku yiri ima washariniyo inaan ceel shubaari ilaahay ima washar ilaahay ima abuurin way inaan ceel shubo nin tay suud wato xamarkii isagoo cunug yar 9 jir xamar galay oo 32 sano askari talaani ah oo inta Itoobiya lagu xiray xabsiga soo jabiyay xoog ku soo jabiyay ilaahay aad soo raxmar soo lugeynay ayuu wuxuu ku leeyahay ceel ilo shub war anigu niyo ceel wariga ma shubay maraqaasi la shubay ka soo caaliyay meesh aniga ilaahay ma abuurin marka hadda aniga Cabdirashiid Cali Mira ilaahay iima abuur markuu sameeyay aniga aabahay iyo awowgii Maxamed ba inaan jaajuus noqdo dabeecadda ilaahay noo abuuray ma kamid ma aha marka haddii la rabo in wadadii Abubakar iyo Umar iyo Usmaan iyo Cali la raaco waa in horta laga go'aa Soomaaliya ka go'da Carabta Sacuudiga iyo Masaarida ay diintooda ay noqotaa diin ilaahay iyo samada ku xiran laakiin Carab iyo xoogaa dollar ah oo laga soo qaaday Masaarida iyo Sacuudiga aan ku xirnay aniga sheekhayga aan diinta ka qaato waxa la yiraahdaa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Yurubiyan buu ahaa Albaniyan wadanka Albania oo Turku dhigan buu ka yimid 99kii buu dhintay Urdun ku dhintayba ninkaasaan anigu axaadiista ka qaata Shariif Cabdinuur markuu noolaana insha Allah waa ka dhageystay kitaabo dhowr waa ka dhageystay marka aniga sheekhayguna waa Albani baa Allah u naxariisto ولا سعودي بان أن دين تيدا جدًا كرين ولا مصاري بان جدًا كرين ولا شيخ صومالي جدًا كرين ولا جينا فرقة دينية أو صومالي عربيين مجلين إلى الله أحسن مجلها ومحانو جبانا وحانو جبانا إمله لعب وجبهني كرس وجبهني إن يسعب وجبهني إن يقولون وجبهني محانو جروب كجبانا أنا جروب كي وحالي هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله إيمان كي يقولون وني محمد وحان قضيان وأبو بكر عمر عثمان marka gaaladu wax la iska celiyo u liitee rag waxa la inta soo baxa oo kitaabkii xafida oo hadana barta oo hadana ku amal fala oo hadana rumeeya bini aadanka noolna ku fuliya gaaladu marka kitaabka shiidaad iyo waqtiba uma helaan ba ay ku istaagaan inay gubaanba jihad iyo mataqaana waxa dul taagnaan lahaa rag mataqaan weerarkaas ka gaban lahaayeenba ayaga guryaha loogu soo gal lahaa إن هذا كتاب جوان واحد كان واحد جهاد كتير إياه واحد ما تقان رجعه إسكع إلنا هي وايد مركز أي مرة إني محمد عيان مرة إني محمد صوران مرة كتاب القرآن كتشحن مرة جوان مرة مسخوش ما تقان سحرات سجات تران أي كرت إلى كتاب الرقم مالهاني وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصلى الله عليه وآله وسلم آد بأمها زنتهن وواجي لهي سعودية موضوع كلام هلان كهالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته